السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين دمان حبناها والرد بالشدة قبرة صوماليات هي مرت شرفتك للدوان إيمانتي كسوق يبقى شيء كلن كان مركه هره وحنا نكجم هاد علينا يا كسوق يبقى كلن كا وضعت الشجع تابع جلينتا اسمها جد سعد كدول النمذا حلقة كلا جوركا أنا قلت حراعية qodobadii heshiiskii 27 May ee tilmaamayay joogteynta iyo ka wada tashiga geedi socodka dawladnimada Soomaaliyeed inta aan ku guda jirno doorashada waxaan sidoo kale go'aansanay in xafiiskayga isagoo kaashanaya bulshada rayidka dawlad goboleedyada dalka hay'adaha federaalka iyo cid kasta oo tala iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka in aan bilowno kulamo wada tashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee xukuumadda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka hay'adaha madax bannaan ee dawladda ururada bulshada iyo qubarada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhageystay una koor galay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida aad la socotaan waxaan xalay bawaadiyay dadaalkii gudiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ku booriyay ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyay cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida gudiyada mar kale waxaan ku celiyay haddana ku celinayaa in madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waa dawlad goboleedyada in ay ilaaliyaan madax bannaanida gudiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin gudiyada doorashooyinka waxa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan garowsanay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacda waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhageysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishaan ku haynana dhawaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo mudanayaal marwooyin marka laga soo tago doorashada waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dawladnimada looguna fududeeyo dawladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasto mudanayaal marwooyin anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wada tashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dawladnimada xilligan
talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaanahu watacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale waxaa gaabis ku yimid wixii gaabis ku yimid caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka tala bixinta howlaha hortabinta u leh qaranka iyo dowlad dhiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso mudanayaal iyo marwooyin saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wanaagga iyo habsimo socodka dowladnimada waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan mudanayaal iyo marwooyin mar kale ayaan idinkaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina waxaan doonayaa in aan joogtayno dowladnimo iyo dadkeena udadhaxaad u yihiin afkaarta talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka kulankan waa inoo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu